gudoomiyaha gobolka togdheer oo amar ku bixiyay in la joojiyo dhismayaasha ka socda dhulka danta guud ee ku yaala magaalada Burco ayaa waxa taageeray go'aamadaasi lagu joojinayo dhismayaasha ka socda dhulka danta guud xildhibaan shiine faliidh oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco waxa uu sheegay xildhibaanku in talaabada gudoomiyuhu ay tahay mid ay soo dhaweynayaan ka xildhibaan ahaan halkan waxaan uga hambalyeynaya badhasaabka gobolka oo si wacan yeelay 100% hantida ummadda ee laga gaarsiinayo xilliga kala guurka si wacan u xayiray shalayto meelo badan buu soo xayiray oo ay ka mid tahay egas in sidii hore oo haddii beedankeeda leeyahay si aan sharci ahayn loo waxaysanayay iyo goobo kale oo badan aad baan ugu hambalyeynayna hantida ummadduna oo wax qaaliyo in la wada ilaaliyo ay waajib tahay hadday wadooyinka tahay hadday dhismayaasha tahay hadday dhulka danta guud ee ummadda tahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna intuu soo xayirayba waa ka mid ugu weyneed in sida hoolal waaweyn oo ka mid ah iyo meelo badan oo kale oo ay wadooyin la goynayay iyo ka mid yihiin hanti ummaddu leedahay xilliga laga gaarsiinayna xilliga kala guurka waxaan badhasaabka iyo haddii beedankeeda leeyahay u soo jeedinayaa iyo guddida ilaalinta hantida ummadaba halkii la oran jiray egas xaradhiigta oo haddii beedankeeda la xaradhiigta hore aanu ka raray si sharci darraaba iyadana lagu bixiyey dad shacab baa googoosanaya oo laga iibiyey waxaanu dawladda dhammaanteed dawladdan xiluu ka sii dhammaanaya iyo kale soo socotaba u sheegaynaa iyo hanti dhowrka guudba halkaa la odhan jiray egas halkii gowraca xoolaha in la joojiyo si sharci darraabay ku baxday golo bixiyeyna ma jirto oo ciidka ku wareejiyey hanti ummadda looga soo xareeyeyna ma jirto waxaanay ku fiicneed iskuul tallowga dadka ardayda ka timaadda tallowga sheekh ibraahim bay yimaadaan oo 6,000 oo arday isku dul fuushan tahay oo aan qaadi karaynin halkaa waxaanu doonaynaa inaanu iskool ka dhisno golo ahaan si degdega oo khaldan baa iminka gacmaha shacab loogu wareejiyey markaa meesha xaradhigta la yidhaahdo ee hore ee laga guuray xaradhigta hore aanu ka raray waxaanu leenahay ha la joojiyo waana hanti ummadeedoo si sharci darraa loo qaadanayo waxaanaanu ugu talagalno goluhu isku raacay in iskuul laga dhiso xildhibaan shiine faliidh mar uu weydiiyey telefishinka City Cable TV inay jiraan wadooyin maayirka iyo maayirka xigeenka degmada Burco oo laga dhex dhistay guriga waxa uu ku jawaabay xildhibaanku waa la joojiyay way jiraan dhammaantood laakiin waa la joojiyay badhasaabka shalayto go'aan buu soo saaray xayiraado meelo badan saameynaysa ilaa 9 meelood bay saameynaysa waa la joojiyay waa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga City Cable magaalada Burco.